Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada Aqoon Doon Channel. Haddaad tahay daawado ku cusub channelka, fadlan like saar muuqaalkan, subscribe dhe channelka oo taabo gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaal walbo cusub oo aynu soo dhigno. Mahadsan. waa muuqaalkeenii sideedaad ee HTML5 waxaynu uga hadli doonaa text box and text area with labels. Text box waxaa loo adeegsadaa in la soo geliyo qoraalkaasoo ka kooban hal sadar. Attribute-yada uu isticmaalo waxaa ka mid ah cabirka, joogga ugu dheer, qiimaha, nooca uu yahay iyo wixii la mid ah. Halka text area uu isticmaalo wax ka badan hal sadar. Marka la cabirayo waxaa la adeegsadaa laba attribute oo kala ah columns and rows. Waxaa kaloo la adeegsan karaa CSS-ka iyadoo la isticmaali doono burburtiyada kala ah height and width kuwaasoo kala ah joogga iyo ballaca. Columns waxay u taagan tahay ballaca halka rows ay u taagan tahay height-ka. Aynu u gudubno qaybteennii practical. Ugu horeyn waxaan soo kicinaynaa text editor-ka. Kadib waxaad imaanaysaa qaybta baadhiga. qaybta baadhiga markaan imaano waxaan ku qoraynaa tagga ah form. kadib waad xiraysaa tagga enter dheh. intaa markaad samayso waxaad imaanaysaa formka dhexdiisa. kadib waxaad leedahay action ha la mid noqdo method. intaa markaan samayno waxaan imaanaynaa formka dhexdiisa. kadib waxaan u baahannahay haddeertaan label inaan sameyno. labelka waxa inoo soo bandhigi doonaa text editor-ka waxa uu inoo qabanayo iyo magaciisa. labelka markaan sameyno waxaan leenahay label xir tagga enter dheh. intaa markaan sameyso labelka muxuu inoo qabanayaa label for kadib enter dheh. waxa uu inoo qabanayaa past name. labelka gudihiisa imow kadib waxaad ku qortaa past name. intaa markaan sameyno hadda waxaan u baahannahay text box inaan sameyno. si aan text box u sameyno waxaan imaanaynaa labelka hoostiisa. kadib waxaad leedahay input. type-ka marka maxaan ka dhigaynaa type-kaan u baahannahay waxaa waa inuu noqdo qoraal. waxaad ku qoraysaa text. name-kana meel bannaan noqdo. intaa markaan sameyno waxaan sameynaynaa line break. line break waxay inoo suuragelinaysaa inaan kala jibino line-ka. line break si aad u samayso waxaad leedahay marka br ama waxaad furaysaa tagga br. mid kale aan saga darno. intaa markaan sameyno hadda waxaan u baahannahay mar labaad inaan sameyno labelkii labaad. kaliya waxaad tiraahdaa enter. stepkii hore adoo raacaya waxaad leedahay tag fur label xir tagga. isla qaabkii hore waxaan leenahay for last name. kan wuxuu inoo qaban doonaa magaca dambe ama last name-ka. labelka gudihiisa imow kadib waxaad ku qoraysaa last name. intaa markaan sameyno haddana waxaan u baahannahay inaan sameeyo text box-ka labaad. si aan text box-ka labaad u sameeyo kaliya waxaan leeyahay enter tag fur kadib waxaad ku qortaa input type-kiisa la mid noqdo text. hadda waxaan sameynaynaa marka line break. ugu dambeyn waxaan u baahannahay inaan sameyno text area.
si aan u sameeyno text area waxaan fureynaa tag kadib waxaad ku qoraysaa text area tag xir inta markaan qorno waxaan leenahay marka colliskiisa hala mid noqdo content sidoo kale rowskiisana hala mid noqdo 5 kaliya waan save gareynaa bal aan tijaabino waxa aynu sameynay waxaad tagtaa halkii uu kugu keedsanaa page-kaaga kadib soo kici haddaba waxaa halkan inoogu muuqda inaan sameynay text box iyo text area tusaale kale kan waxaan ku qoraynaa Mohammed last name kan wuxuu inoo noqon doonaa Saqaawe waan filayaa inaad ka hesheen muuqaalkan intaan ku kulmi doona muuqaalka xiga waxaan idinkaga tagayaa sida ay nabadgeliyo wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته